run ahaantii waxaa noo soo baxay asbaabta keentay inay daadadku ama roobabku awood kastaba ha lahaadeene ay geystaan dhibaatooyin ka ballaaran kuwii ay waqtiyadii hore geysan jireen taas oo markaanu baadhnay 3 arrin noqotay ta koowaad waxay noqotay waxa la awday ama la xalaashaday buundooyinkii loogu talagalay inay biyuhu ka saaraan magaalada dhexdeeda ama guryaha ka badbaadiyaan oo ay dad si gaara u yeesheen ay lahaayeen dhibaatada labaad waxay ahayd boorarka waaweyn ee wax lagu xayeysiiyo shirkadaha iyo kambaniyadu ay wax ku xayeysiiyaan ama wasaaradahaba aan idhaahdo yaanan eedda annaguba aanan iska fogeynin oo runtii laga taagay meelo aanay ku habboonayn oo magaalada bartinkeeda laambadaha laydhka lagu xidho ama biraha laydhka ee wadada hareeraheeda la raaciyay runtii inay u yaalaan meel inay gabi ahaan u sameeyeen qaab inay ku habboonayn sidaad ku sheegteen qiimeyntii aad soo saarteen birahan laydhku dhibaato badan bay ay bulshada ku hayaan xilliga roobka oo dad baa u dhinta markay xarkihii go'aan ama birtiiba ay soo dhacdo nimanka ganacsatada ahi way awoodaan inay kharash fiican ay geliyaan laakiin dacabsi iyo xeer qabtaan ayaanay arkin maxaa dawladdu xeer lagu sameey weyday marbay waxaa loo baahan yahay in bariiq la helo marna waxaa loo baahan yahay in badbaado la helo waxaan oran karaa sidiiq labadii baa kala horeeyay oo markii hore waxay ahayd cawa badan caweernimay ka tosay inay magaaladu mugdiga ka baxdo oo aynu meel iftiina gallo oo aynu adeegsano aaladaha casriga ah oo tiknoolajiyada la hana qaadno taasi waxay ahayd in laydh la helo macnaheedu markaynu laydhkii helayna waxaynu ogaanay dhibaatada uu leeyahay iyaduna imika waxay u baahan tahay in la xadido oo si aan dhib lahayn loo maamulo laagahan aad soo aragteen dadku ay degaan kuwa sharci ku degan iyo kuwa sharci darro ku deganba way jiraan marka dad badan ayaa daadadku ay markii meel ay yuraan waayaan guryaha ugu galaan oo dhimashooyin baa marar badan ka yimaada dadka ehladii ay ka dhinteen imaka yay xaq ku leeyihiin ama baynuna qof kasta oo isagu keena masiibada sababta qof walaalkii inay dhibaato u geysato ama geeri ha noqoto ama qasaare ha noqoto ama siday doontaba ama dhaawac ha noqotee waxaan qabaa inuu qayb ka yahay isagu